qalbi dhaawacmoo dhiman waayey baad rajo dhow tustee bal markaaga dhowr qur jacayl dhiboo dhakhtar weyday baa dhaymo kaa heshee bal dheeligowdiid niyad kula dhacdaa ku dhagaysatee adigoon dhibayn dhabta ugu dadaal naf ku dhowratoo dhul fog kaa jirtaa dhambaal kuu sidee dhaqso uga guddoon qof dharaar dartaa gayaankeed dhammaan iska dhaaftay baa boga kugu dhigtee dhinaceyga joog. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhawaada asxaabtaydii, waa mar kale iyo walaalkiin axmed xirsi. saad sawirka uga jeedaanba ereyada aan soo bandhigi doono waxaa leh Kaaba Axmed. ereyadan marka aan dhadhamiyey ama qiimahooga markii aan arkay waxaan jeclaaday inaan asxaabta la wadaago. saad codka kusoo dhageysatayba iminka waxaan jeclahay inaan waxoogaa sir dultaago. waxay ku bilowday qalbi dhaawacmoo dhiman waayey baad rajo dhow tustee bal markaaga dhowr. qalbi lasoo dhaawacay oo dhaawac badan kusoo dhacay oo dhiman waayey oo kasoo hadhay iyad adiguna rajo dhow iyo jacayl cusub iyo nolol cusub tusaysae bal markaaga dhow adiguna bal dhowr inuu dhiman sidii hore ama inuu dhaawacmin sidii hore loosoo dhaawacay. taa waa araarteeda koowaad. isla iyada oo lasii hadlayso wiilkii waxay dhahday qur jacayl dhiboo dhakhtar weydaybaa dhaymo kaa heshee bal leelgowdiid. naftii oo jacayl soo dhibay oo dhakhtar iyo dhaymo soo weyday cidna ay soo daweyn weyday yaa adiga dawo iyo baxnana kaa heshay ee adiga hadda dheelgowdi sii kuwa hore usoo dhaawaceen ha u dhaawicin ha u dhibaataynin. niyad kula dhacdaa ku dhagaysatee adigoon dhibayn dhabta ugu dadaal. isla ereyadan waxay ku leedahay naf adiga kula dhacday oo kaa heshay ood cajabisay ayaa ku dhagaysataa. qofku jecel iyo si fiican u dhagaysataa u dhagaha raariciyaa adigoon dhibayn sidii kuwa hore usoo dhibeen adoo dhaawacaynu dhibayn dhabta ugu dadaal. waxyaabaha runta ee xaqiiqada ugu dadaal oo runta u sheeg, beenha usoo sheegay sidii kuwa hore usoo sheegeen. ereyadan oo kale waxaa lagu dhihi karaa qofoo dhowaan isbarateen ay kaaga dhacday oo qalbigaagay qaatay adigoo uga digaya wixii hore kuu soo gaadhay, dhaawacyadii hore iyo dhibaatooyinka hore kuu soo gaadhay adoo uga digaya waxaad ku leedahay niyad kula dhacdaa, niyad ku jeclaatay oo kaa heshay oo adiga kugu haysato ku dhagaysata. taas ayaa ku dhagaysato oo si dhaba kuu dhagaysatee adigoon dhibayn. niyaddaa ku dhagaysanaysa kula dhacday adigoon dhibayn dhabta ugu dadaal. waxyaabaha xaqiiqada runta ugu dadaal. isla iyadoo ugu sii digaysa ama guddoonsiinaysa abaalgudkii jacaylka ay u qaaday ayaa weliba sheegaysa qofku inuu nala joogin uu ka fog yahay. waxay ku leedahay naf ku dhowrato dhul fog kaa jirtaa dhambaal kuu sidee dhaqso uga guddoon. jacaylkii iyo kalgacalkii ay gabadhaasi kuu qabtay ama qalbiga ama naftaasi ay kuu qabtay waxay jeclaatay inay ku guddoonsiiso ubax. isla qofkaasi wuxuu kaa jiraa meel aad u fog, haddaba ka guddoon si dhaqsa uga guddoon. isla hadalka waxay kusii dartay ama ay kusoo gunaanatay qof dartaa dharaar. dharaarta waxaa laga wadaa dharaaraha ka mid a qof gayaankeedu u yimid naf diiday, ama dharaarta waxaa laga wadaa caddo dhulkoo cad oo madmadow ku jirin. qof dartaa dharaar cad intuu gayaankeyga u yimid diiday, ama qof dartaa dharaar maalin maalmaha ka mid a oo gayaankeyga u yimid. qof dartaa dharaar gayaankeed dhammaan iska dhaaftay baa boga kugu dhigtee dhinaceyga noqo. qof gabadhaas ama qalbigaas ama naftaa dharaar cad ama maalin maalmaha ka mid a gayaankeygii oo dhan iska dhinac martay oo diiday ayaa boga kugu dhigta adiga hadda. isla naftaas waxay ku leedahay dhinacayga noqo, ani dhinacayga markasta noqo, garabkayga noqo, ii weheli cadowgayga dhici sidii kii hore ii dhaawaceen ha ii dhaawacin naftana guddoon. inta waxaan kusoo gabagabeynayaa isdultaagay
iminkana san hore buu eegi jirna waxaan eegi doonaa kommentayaashii laga bixiyey iyo asxaabtii kasoo dhiibatay fikradooda. la socod wanaagsan. Kafal celiyaha koobaad waa luuli degan, iyadoo waxay dhahday qof darta dharaar gayaankeed dhammaan iska dhaaftay baa bog ugu dhigtay dhinaciga noqo, intaas ayaa iga gadan abwaanaday. Kafal celiyaha labaad waa muhiim, iyaduna waxay dhahday nafku dhowrato dhul fokaa jirta dhambaal u sidee dhaqsagu guddoon. dadku waa wada dhaawacan yihiin, iyadana waxay dhahday abwaanadii intan ayaa iga gadan igu socoto. falceliyaha ugu dambeeya waa Xamse Daahir, isaguna wuxuu dhahay halkan casaanka weyn marka ay marayaan dumarku waa nugul yihiin. casaanka waxaan u fahmay sawirkan dambe, sawirkan uu soo dhigay inuu ka wado dumarku markay walaal iyo wanaag iyo ay soo wadaan way fiican yihiin, laakiin jacaylka casaanka markuu gaadho aad ayay u xun yihiin, u dhib badan yihiin, wana ku raftaan. Allah kaa gargaara kaa waaye. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.